إسبارو أنا هذا قلتنجر أمد حويننا أقبل هذا كل إسبارو محمد نور سنسول لبي لغاقنوه إبراهيم مع النور شنقضوه حسين عثمان حسين لبقضوه سيد أحمد شباه حفر قضوه وعاقب مالي سيد بقض عبد العزيز حسن محمد لطفي بقول له بطء المهدي ترى وحافظ الشيخ عبد العزيز حسن لطفي ومدحلينا لبقض waa 19 bishii December sanadii 2018 waana maalinkii ummadda reer Koonfur Galbeed ay ka xorooween gacmaha iyo maskaxda gumaysiga waana taariikh xusid mudan oo ku weyn qulubtooda iyo maskaxdooda waxayna maalinkaas ay nasiib u yeesheen inuu hogaamiyo shakhsi ay ku weyn tahay jiritaanka magaca reer Koonfur Galbeed mowqifkiisa ugu horeeyana uu yahay sidii ummadan ay u midoobi lahayd ayna u hormari lahayd waana madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen waa sanad guuradii shanaad oo Rabbi uu ku manaystay inuu hogaanka noo sii hayo madaxweyne Cabdicasiis hase yeeshee su'aasha isweydiinta mudan ee meesha taala ayaa ah maxaa u qabsoomay madaxweynaha iyo labadiisii gole tan iyo muddaxileedkii la soo dhaafay madaxweyne Cabdicasiis muddadii 5 sano ee la soo dhaafay wuxuu meesha ka saaray nidaam iyo caadooyin qaldanaa oo horay loogu maamuli jiray ummadan wuxuuna la yimid sharci adag oo ku salaysan sinaan iyo cadaalad loo wada dhan yahay kaasi oo lagu wada maamulayay mas'uul iyo shacab intaba madaxweyne Cabdicasiis sanadihii la soo dhaafay wuxuu wax badan ka qabtay horumarinta dhinacyada waxyaabaha asaasiga u ah nolosha bini'aadamka oo ay ugu horeeyaan cadaaladda waxbarashada caafimaadka amniga biyaha iyo cunnada wuxuu horumar la taaban karo uu ka sameeyay magaalooyinka gobolada Bay Bakool iyo Shabeellaha Hoose oo qaarkood uu gaarsiiyay meel weligood aanay horay u gaarin markana aan siiyo mid ka mid ah haweenka magaalada Baydhabo oo ka hadlaysa isbeddelka magaalada iyo bilicdeeda runtii wax aad loogu faano runtii marka ka hadla dumar ahaan yani dhibaato badan aan ku qabnay wadooyinkii aad u burbursan karkashinka oo aad u badnaa populationkii aad u badnaa marka dhibaato badan aan ka qabnay alxamdulillah runtii wax la taaban karo runtii madaxweynahan qeyr badan Allah siiyay intii kala shaqaystay hawshaas waxa waaye wax oo runtii ma soo koobi karo oo wax aad loogu farxo waxaan rajaynaynaa inta dhimanna sidaas ay si ka qurux badan inay ku dhamaato waxa waaye waxaan dhihi karaa wax yani qofkii og leh dareemi karo alxamdulillah aad ugu faraxsanahay waana horumar annaga aan gaarnay waxaan leeyahay dawladda Koonfur Galbeed wax fiican ayaa qabateen waxaan leeyahay ku sii socdo sidaa si ka fiican markii hore Soomaaliya jira markii haweenka uurka ay leeyihiin wadooyinka jajabka markay soo marayaan waxa jiray caqabadooyin fara badan oo dhibaato badan bal haatan ka waran bal wadada markaa maraysa wallahi waxa waay farq weyn u dhaxeeyo hadda raaxan ku marnaa wadada dhibaato la'aan ku marnaa awal hooyo xaamila iska soo mari karto hooyo caruur wadato dhibaato badan ku qabnay marka oo dhanka haweenka loo fiiriyo runtii wax aad loogu faan hadda alxamdulillah wadada wallahi waxa waay kama sheekeen karno meeshii awal door daqiiqadood 15 minutes aan socon jirnay hadda waxa soconaa 4 minutes 3 minutes alxamdulillah taasna waa guul la gaaray وانا بوغادينايا ان بدن والله دنكاسنا waxa waaye waxaan dareemeynaa guul far badan in la soo hooyay sababta dhalinyarada boqolkiiba 75 waa dhalinyaro waana dadka mustaqbalka waxa aad loogu faan waa garoomada waa tagaa mararka qaar ciyaaraha si qurux badan ay ugu qabsadaan hawshoodii runtii waa wax aad u wanaagsan xarun goboleedka dawladda Koonfur Galbeed ee Baraawe ayaa sidoo kale ka mid ah magaalooyinka mas'uuliyiintooda ay ka hadleen horumarada ka jira sidoo kale magaalada Baraawe waxa ka socdo horumar mashaariic dhan walba ee bulshada qaybaheeda kala duwan haday tahay caafimaadkii loo dhisay MCAyo isbitaallo waaweyn dhankii waxbarashada oo loo dhisay iskuulo gaaraya ilaa 10 qaarna la dayactiray haddeertaan waxa socdo mashaariic waaweyn oo ah airport magaalada u jiro 8 kilomitir oo magaalada imaanay in laami loo saaro magaalada dadka reer Baraawe waxaan ugu mahadcelinaynaa mashaariicdaas waxa waaye madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed har iyo habeen u taagan degmada Baraawe waxa waaye inay horumarto magaalooyinka kalena waxa waaye la tartanto mashaariicdaas waxa waaye madaxweyne Cabdicasiis muddadii la soo dhaafay wuxuu sameeyay maamulo kala duwan oo laga soo xuli jiray qaybaha kala duwan ee bulshada ka soo jeeda deegaanadaasi ayna raali ka wada yihiin
markii talada maamulka uu qabtay madaxweyne Cabdicasiis waxaa yaraatay dilkii bareerka iyo maalayacniga ahaa kadib markii uu ku soo rogay koonfur galbeed in qofkii qof dila la dilo nidaamka uu kaga duwnaa maamulkii ka horeeyay wuxuuna la yimid oraah ama halheys caan noqotay oo ahaa isbaara 20 jirkayga aan diiday 60 jirkayga kuma aqbalayo sida uu ka dhawaajinayo afiyeenka golaha malaaqida koonfur galbeed malaaq derow yacquub waxyaalaha la xusu kormay ee oraahday ahayti aan oo 20 jeer diidi isbaaro aan oo hadda konton jeer madaxweynaha ma ogolaado kor isbaaro kelmadaasi ma haytay kelmad qaali ah kelmad kale jirta oo sidaas oo kale yana shacabadi markii uu saarray al-shabaab la dagaalamay nimanyo hal dharfo yarto markii la dharfo iyo wali isku dhaway wuxuu sidoo kale madaxweyne Cabdicasiis oo ka hor yimid hay-adaha iyo ciidamada shisheeye oo qaadan jiray ciideena iyo macdinta ku jirta oo madaxda maamulkii ka horeeyay lacago ay siisan jireen nidaamka madaxweyne Cabdicasiis sanadahan gudahooda wuxuu maareeyay nolosha kumanaan qoys oo barakacyaal ah kuwaas oo saameyn ku kala yeeshay abaarihii iyo fatahaadihii dalka ku dhuftay wuxuuna u muujiyay garbistaag ka muuqata mid dawladnimo iyo sidoo kale mid ehel iyo sokeeynimo sida uu sharaxayo wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada dawladda koonfur galbeed mudane Cabdifataax Cali Yuusuf mayba oo deeqday oo qoyti sadma 776 korton oo timir guddiga fatahaadaha dawladda koonfur galbeed mayba si toosan ku wareejiyaase dawladda hoose gudoomiyaha degmada ahna kasimaha gudoomiyaha degmada Baydhabo mudane tigaab kulay waa ku araga hayta alaabtii luureeg insha Allah waxade saas dhinacyada siyaasadda gudaha iyo dibadda madaxweyne Cabdicasiis wuxuu doorar muhiim leh oo la taaban karo oo ka qaatay sidii dalka uu yeelan lahaa dawlad daacad ah oo loo wada dhan yahay wuxuu xoog saar jiray isagoo dhibaatooyin fara badan oo dhan siyaasadeed leh ka marayay sidii dadka reer koonfur galbeed ay u heli lahaayeen kuraasta ay xaq ay u leeyihiin iyo boosas kale oo muhiim u ahaa oo ku saleysnaa nidaamka wax kala qaybsiga Soomaalida madaxweyne Cabdicasiis wuxuu xoog saaray sidii ay u soo bixi lahaayeen dhalinyaro fara badan oo wax baratay kuwaas oo ka qayb qaata siyaasadda dalka isagoo sanadihii la soo dhaafay qaar ka mid ah dhalinyaradaasi ku kala daray labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta qaarkood ay wasiir ka yihiin xukuumadda danqaran aansiyo Maxamed Qays wasiir ku xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dawladda koonfur galbeed oo ka hadlaya aragtidiisa shakhsiyadda madaxweyne Cabdicasiis madaxweynaha dawladda koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigreen oo mahad celinaya door weyn ayuu siiyay dhalinyarada Soomaaliyeed oo ah inay ka muuqdaan baarlamaankeena oo boqolkiiba 75 ama 80 asli karo waa dhalinyaro golihii xukuumadda sidoo kale dhalinyaro ayaa ka buuxda oo aad madaxweynuhu waan ugu mahad celinaya madaxweynayaasha dawlad goboleedyada wuxuu uga duwan yahay dhalinyarada ayuu focus ka saaray oo diiradda saaray marka madaxweynaha ugu mahad celinaya fursadaas oo la siiyay ma rabo inaan ku sii dheeraado ka hadalka iyo wax ka sheega waxyaabihii uu qabsoomay madaxweyne Cabdicasiis muddadii 5 sano ahayd ee la soo dhaafay hasi yeeshee aan qiimeyno dareenka dhabta ah mid ka mid ah gabdhaha magaalada Baydhabo iyo fikirka ay ka aaminsan tahay madaxweynaheeda ilaahay ka mahadiyaan tan koowad tan lamaad madaxweynagan oo juhdigan dheer iyo mana fursadaan oo dhigtoon wilinin helmaagna ardaydi mana dhalinyaradii magaalada enna oo geekan walna kordhi korno mana fursadaasi tinin ogolaad intii uu meel iska la kulugna wadad anseen unayba fursadna si eedan ka mahadsanyi isii qoladiisban iyo ku hangnin dhasi wariyaaga dhamaantii in ka mahadiyeeliyay tan iyo markii madaxweyne Cabdicasiis xilka qabtay waxa ay isbedelay fikirkii qaldanaa ee laga aaminsanaa ummadda reer koonfur galbeed waxaana meel sare gaaray magaceena taasoo alla ka sokow loogu mahadinayo madaxweyne Cabdicasiis xilligan la joogo madaxweynaha dawladda koonfur galbeed wuxuu dadaal dheer iyo suxul duub ugu jiraa sidii dalkan loogu xoreen lahaa cadowga qawaariijta ee al-shabaab asigoona ku dhawaaqay in la joogo waqtigii uu bilaaban lahaa wajigii labaad dagaalka ka dhanka ah kooxdaasi Facebook leeyahay hatta bilaawade
wali la faday marka dadka shacabka qiyaanada shabaabka iyo dhagartiis la isku jaro maynagadaas howlgalkaas iyo dib u xoreyntaas iyo dagaalkaas la kala jaray naftirshayba fidneeyey dadka iska fareen may dadan iska fara dhibaato wali kastoo nagatooba dhibaato kuwiin geedka shabaab iyo khawaariijta oo Soomaaliya ka jarta male hadalheynta ugu badan muddooyinkii ugu dambeeyay waxay noqotay in madaxweyne Cabdicasiis uu yahay shakhsi siyaasi ah oo ku adag run sheegista iyo oofinta ballamada uu qaado taasoo dabeecad ahaan uu kaga duwan yahay siyaasiyiinta intooda kale isagoona ka dhabeeyay ballantiisa sida uu ku sheegay hadal uu ka jeediyey munaasabad lagu soo bandhigay bandhiga buugga Alif Maay muddo hata lagu roogo 5 sano yaa inta aan oo surana meelaha ta aan surana yaa wali ku ballan qaaday 5 sano bila ku dhiman wali ku ballan qaaday bil ku yara ku dhiman inii inta aan madaxweynaha ah Alif Maay la qori doono yaa ballan qaaday ilaahay mahadiis ballantii aan qaadi fulli siyaasadda madaxweyne Cabdicasiis oo ku maamulayo ummadda reer Koonfur Galbeed ayaa u muuqata mid loo wada riyaaqay isla markaana hiigsanaysa horumar iyo baraare iyo raja in mar kale dib ay u soo doortaan limbago lisla jeelada Cabdicasiis lafta gareeno maga suubano